aad baan idiin salaamaya dhammaan asxaabteena ku xiran channelkeena maanta idiin soo gudbinayna arin xaqiiqda ku saleysan waxa xaqiiqo ah in wax kasta oo qofka ku dhaca ay leeyihiin sabab hadaba dhibaatadan oo noqotay mid ku baahaysa dhalinyarta da'yarta ah ayaa waxaynu soo qaadan doonaa dhowr qodob oo ah waxyaabaha keena inuu qofku hore u biyo baxo. kow, dhibaato nafsiyan ah. qofka oo shaqo badan haya maalintii oo dhan kadibna marka uu guriga yimaado aan ka helin haweenaydiisa soo dhaweyn aad u sarreysa in qofku uu kalsooni darro ka qaado haweenaydiisa ama gabadha ninkeeda aanay aad ugu kalsooneen. qofka oo waqtiga uu galmada bilaabayo dareemo isku buuq badan. soo jeedka habeenkii oo isaguna ka mid ah waxyaabaha keena iyadoo loo baahan yahay qofku inuu yareeyo soo jeedka faraha badan. labo, qofka oo ay la soo darsaan dhibaatooyin xagga jidhkiisa ka mid ah kuwaas oo ay ka mid noqonayaan qanjir, xanuunka xiniinta oo ku xanuunta iyo cudurrada ku dhaca maskaxda. cabidda sigaarku waxa ay qayb weyn ka qaadataa dhibaatadan in qofku uu xajin waayo biyaha waqtiga galmada sababtoo ah unugyada dhiiga qaado waxay noqdaan kuwa aad u yaryar markuu qofku sigaarka cabo, taasoo sababta in dhiiga qofku uu xoog u shaqeyn waayo. dhammaan intaan idiin soo sheegay iska ilaaliya. gabadha waxaan kula dardaarmayna marka ay sameynayaan jameeca gogasha in aysan ninkeeda buuq ku furin. sidoo kale waxaan kula dardaarmayaa marka uu odageeda ama seegeeda ama xaajigeeda uu ka yimaado shaqada in aysan horay uga bilaabin qaylo iyo buuq si hodhow gogasha uu suququl kugu geliyo. sidoo kale dhalinyarta waxaan kula dardaarmayaa in ay iska daayaan sigaarka ay cabayaan iyo maandooriyaha. waxaa laga yaabaa dhibaato maskaxiya inuu kuu keeno in aad awood u yeelan weysid inaad gabadhaada jameec wanaagsan u samaysid. sidoo kale dardaaranka xiga waxa ay tahay dhafarka iska daa. waan kuu sheegay dhibaatada ay leedahay. hodhow ha noqon howlgab dhanka sareerta ah. mahadsanidin asxaab qaali ayaa tihin dhammaantiin.